howlgalka ayaa ujeedkiisu ahaa burburin fariisimaha argagixisada al-shabaab ay ku leeyihiin deegaanada kale ah Shaw, Daarusalaam, Cadaydheere, Sangadaale, Kurdaaley, Biyo Kulul iyo deegaano kale. Deegaanka Daarusalaam ayaa al-shabaab u ahaa goob ay gabaad ka dhigtaan isla markaana deegaan u ah amiirada al-shabaab iyagoona ku lahaa bara kantarool iyo goob ay ku qaadaan waxay ugu yeedhaan sakawaadka oo ah dhaca xoolaha shacabka Soomaaliyeed. halkani daawadayaal waa afaafka hore ee laga galo deegaanka Shaw ee gobolka Hiiraan. deegaankani waxa uu hoos tagaa degmada Talaqsi ee gobolka Hiiraan. saa aragtaan daawadayaal afaafkan ayaa laga galaa. halkani waa afaafka hore ee marka laga yimaado dhinaca deegaanka Daarusalaam laga galo. daawadayaal waxaan kala soo hadli doonaa gudaha ciidamada Kumaandooska Danab ayaa hawga qorshaysan ku yimid halkan. deegaankan ayaa waxa uu xarun u ahaa ururka argagixisada arxanka daran al-shabaab. halkan waxa bara kantarool isla markaana goobo ay ku dhibaateen dadka shacabka ku leh argagixisada arxanka daran al-shabaab. ciidanka ayaa mid u baaray xaafadaha halkaas ku yaalay ayagoona sii baacsanaya argagixisada al-shabaab waxayna halkaasi lagu burburiyay saldhigyadii ugu waaweynaa ee deegaankaasi ku yaalay. howlgalka ayaa yimid kadib markii hay'adda nabad sugidda qaranka soo gudbisay xog ku saabsan argagixisada al-shabaab. ciidanka Kumaandooska Danab xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgallo qorshaysan ka fuliyay deegaano ka tirsan gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan.